السلام عليكم ورحمة الله تعالى وbarakaatuh. Demogan yar ama demonstrationkan aan samayn doono wuxuu faahfaahin doonaa oo faahfaahin yar aan ku bixi doonaa koorskeena Basic Medical Science. Waxaan insha Allah isku dayi doonaa inaan wax ka dhahno qaabka aan u qaadan doono koorskan, qaabka uu bixin doono, maadooyinka lagu qaadan doono, dadka loogu talagalay, waqtiga uu socon doono iyo fiiga layskaga baahan yahay si aad koorskan uga soo qayb gasho iyo informationa kale oo badan ayaan rabnaa inaan kusoo koobno waqtigan yar haddii ilaah yiraahdo. Insha Allah si aad information buuxa ama xog buuxda aad uga hesho muuqaalkan yara dhamayso. Si aanan waqtiga u maaragtay u beeqaamino hore ayaan usii geli doonaa. Course-ka magaciisa waxa weeye Basic Medical Science ama Basic Medicine. Marka Basic Medicine kaliya ma noqon doone waxaanu samayn doonaa haddii ilaah yiraahdo clinically oriented basic medicine wax la yiraahdo. Marka dunida maaragtay ama medical schoolska adduunka qofka ardayga asagoo basic ku jiro oo sanadada la yiraahdo biomedical science-ka ama basic medicine-ka sanadka la qaadanayo basic medical science-ka qofka asagoo basic qaadanaya ayaa waxaa la rabaa inuu ardaygu medicine-ku macnaha waxaan ay sameynayaan qayb yar oo ka mid ah oo maaragtay fahamsan yahay. Although uu clinically caadi u arki doono markuu clinically yar iska gaaro, laakiin let's say anatomy qofka qaadanaya anatomy-ga ama maadada marka uu qaadanayo waa inuu fahmi karo. Let's say anatomy-ga waxaan ka hadlaynaa femarka oo kale waa inuu fahmi karo ama uu yaqaano waxyaabaha clinical relevant-ga la ah. Ma garanaysaa qaybta marka laga hadlayo basic ah. Marka anaga waxaan isku dayi doonaa insha Allah basic medicine-kan inuu noqdo clinically oriented, sidoo kalena inaan ku dabaqno resource-ga aan qaadanayo USMLE. So course-kan laba ayuu iskugu jira oo ah basic medical science iyo sidoo kale USMLE basic, because waxaan isticmaali doonaa questionnaires ama question banks ay isticmaalaan maaragta dhaqaatiirta diyaarinaysa USMLE. So marka hore waxaan ku bilaabeynaa koorskan ujeedkiisa wuxuu yahay inaad dhisto aas-aaska fahamkaaga cilmiga caafimaadka. So waxaa jirto sayin caan ah ama proverb caan ah oo tiraahda to become a great doctor you have to master the basics. Waxyaabaha basic waa inaad maaragtay aad xariif ku tahay si aad clinicalka xariif ugu noqoto, which means clinical medicine-ka markii aad fahansantahay ayuu clinical medicine-ka wuxuu yahay waxaad qurux badan oo aad ku raaxaysanayso. So anaga waxaan ujeedkeena u yahay koorskan aan ku diyaari doonaa dhaqaatiirta aan ugu diyaarin doonaa haddii ilaah yiraahdo basic medicine-ka asagoo clinical oriented sida aan soo sheegnaba. Dadka targetka oo loogu talagalay lamarka koowaad waxa weeye dadka raba inay diyaariyaan examska internationalka ah oo labadan ay ugu caansan tahay ama imtixaano local ah. Let's say qofka imtixaanka xitaa jaamacadiisa oo kale iyo wixii lamid ah, laakiin ujeedka ugu muhiimsan waxa weeye imtixaanka ee ardada in loo diyaariyo ardada ay diyaarinaysa USMLE-ga ama bilaabka. Sidoo kale waxaa loogu talagalay university students ama medical students waa same way. So ardada still jaamacadda dhiganaya ama basic ku jiraan ama clinical ku jiraan labadaba waa anfacaya. Which means semester 1 haddii aad tahayna wuu ku anfacayaa, haddii aad semesterka ugu dambeeya tahana koorskan wuu ku anfacayaa si aad recall ugu samayso wixii aad baratay iyo sidoo kale another angle inaad ka fiiriso ama maaragtay maadaama imtixaankan uu yahay uu ka duwan yahay qaabka jaamacadda aad uga qaadanayso xoogaa laga yaabo inaad load badan qaadayso. Hal maada ayaan jeexjeexi doonaa waana hab diyaarsan oo in badan ka fudud marka loo fiiriyo midka jaamacadahan kusoo qaadanay, oo waxaan fiirin doonaa maxaa muhiim ah maxaase muhiim ahayn. That's the difference. Farqiga u dhexeeya waxa weeye waxaynu qaadaa dhigi doonaa waxa muhiimka ah in terms of exams and in terms of like qofka dhakhtarka ah generally. Junior doctors-ka ayaa sidoo kale ugu talagalnay koorskan uu anfacaya oo raba inay exams diyaariyaan ama just inay aqoontooda kordhiyaan. maadooyinka hadda aan rabnay inaan koorskan ku dhameyno waa 7 maado. Waxaa ugu horeeya maadada caanka oo la yiraahdo cell and molecular biology oo la yiraahdo waa building blocks of medicine. Qofka markuu rabo any field of medicine kamid ah inuu maadadan fahamsan yahay, just medicine kaliya maahan, I mean any medicine oo any field oo caafimaadka ama health care ka soo gelaya qofku inuu maadadan garanayo. Sidoo kale maadada wax ku qaadan doona microbiology oo aan ku qaada dhigi doono insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo qaybihii kala duwan ee microbiology-ga sida bacteria-dii, viruskii iyo fungi haddii Ilaahay yiraahdo.
iyo parasitologygani waxaasoo dhan ayaan ku qaada dhigi doonaa, asagoo waxa muhiimka aynu ka qaadan doono USMLE based ah, conceptska aad uga baahantahay relevantga ahna aan xooga saari doono. Sidoo kale waxaan qaadan doonaa pharmacology oo maaragtay maado aad iyo aad muhiim u ah. Inta in step USMLE step 1 kana maado aad high yield u ah. Sidoo kale biochemistry ayaanu qaadan doonaa, pathology ayaanu ku qaadan doonaa coursekan, clinical anatomy and medical physiology. So todobada course ayaan ugu muhiimsan intaan qaadan doono. Laba maada jirto rabna inaan dhex gelino haddii ay maaragtay waqtigu noo saamaxo. Midda u horeysa waxa weeye waxaan rabnaa inaan dhex gelino biochemistryga, maaragtay genetics inaan dhex gelino oo aan ku darno, anatomygana inaan isku dayno inaan ku darno embryologyga intii muhiim ah. So sidoo kale coursekan wuxuu socon doonaa halkii maado waxay socon doontaa 2 bilood, which means let's say cell and molecular biology wuxuu socon doonaa 2 bilood. Labadaas bilna 2 section ayaan kala qaadi doonaa oo bisha koowaad iyo bisha labaad ah. Topicska iyo referencega aan soo wadaagnan waa ku kafar garayn doonaa insha Allah. Inta muhiimka ayaanu ka qaadan doonaa. Waxaa jira waxyaaba ardayda loo diri doonaa, resource dheeraad ah loola wadaagi doono oo rabo ardaygu inuu asagu jadwal samaysto uu soo akhriyo. Dabcan waxaa jiri doona assignments iyo waxyaaba noocaas oo ardada lagu fiirin doona fahamkooda. Courseku wuxuu leeyahay shahaado diploma ayuu leeyahay qofkii dhammeeyo u baahan. Qofkii sidiisa inuu isku dhiso rabana dee I don't think inay that important ay tahay inuu maaragtay shahaado, because of already waa dhakhtar caafimaad oo coursekan waxaa loogu talagalay jaamacad dhiganaya ama dhameeyey. Waxyaabaha aad ku heli doonto coursekan waxaa ka mid ah number 1 live classes inaad hesho. Habeenkii lasoo xaadiri doonaa 3 habeen oo asbuucii ka mid ah. 8 habeenimo 8 pm ayaa galaasku bilaaban doonaa, 10 pm na wuu noo dhammaan doonaa haddii ilaahay yiraahdo, which means 2 saac ayay noo socon doontaa. Courseku sidoo kale waa record garayn doonaa oo ardada u baahan waa la share garayn doonaa. USMLE style questions ayaan qaadan doonaa, question bank ayaan iibinay oo caan ah, we shall see. Sidoo kale clinical scenarios ayaan qaadan doonaa iyo ama discussions wax la yiraahdo. Halkii course waa 2 bilood sidaan soo sheegnay. Hadda discount ayaa jiro oo 35 ah oo xitaa 5 aan kusii darnay, oo which means bishii ardaygu wuxuu iska bixinayaa $15 ama $15 iyo $3 diiwaangelin haddii la yiraahdo. Registrationku hadda still waa u furan yahay oo coursekii although aan rabno inaan weegan bilowno, haddana registrationka qofku uu ka faa'iideysan karaa, activity uu leeyahay. So coursekan waxa weeye ujeedadiisu waxay tahay 2 in la dhiso aasaaska fahamka caafimaadka ee dhaqaatiirta ama ardada jaamacadda weli dhiganaysa, sidoo kale inaan dhakhtarka loo diyaariyo gelidda examska internationalka. So labada ujeedda ayuu leeyahay. Hadduu ilaahay idmana waxaan samayn doonaa waxyaabaha aad heli doonto horaan usoo sheegnay. Waxaa meeshan ku dheeriyay inaan samayn doono haddii ilaahay mentorship, oo aan ardada la talin doono waxyaabaha ay markaa maadada isqaabka ay rabaan inuu akhriyaan. Maaragtay haddii ilaahay yiraahdo examka qofkii raba inuu galo inaan mentorship u sameyno, inaan ku xirno qaybaha u baahan yahay, waxyaabahaas samayn doonaa. Standard exam skills ayaan samayn doonaa haddii ilaahay yiraahdo markaan courseska dhammayn rabno. Lifetime access ayuu fiidiyoyaasha qaar u heli doonaa. Haddii ilaahay yiraahdo informationkan dhan hore usoo share garaynay. So maadooyinkan aan ku qaadan doonana waa maadooyinkan aan hore usoo sheegnay. So meeshan waxaa ku dheeriya raba inaan sheego. Waxaa la rabaa resourcega ama materialka aan qaadan doono waxaa weeye mostly waxaan qaadan doonaa oo aan reference aan u qaadan doonaa buugaagta la yiraahdo Kaplan. Sidoo kale qaar maadooyinkana ka mid ah waxaan ka qaadan doonaa first aidka. Qaar ka mid ah referencegana wuxuu noqon doonaa maadooyinka qaar buugaagtan la yiraahdo living code oo aad garanaysaan haddii aad medical student tahay ama aad horay jaamacadda soo dhigatay, buugaagtan oo dhan waad garanaysaa. Marka macnaheedu maaha inaan labada bil buug dhan ku dhammaynayno, yacni aan wada akhrinayno, laakiin waxaan ka qaadan doonaa meelaha high-yieldiga ah, conceptska muhiimka ayaan qaadan doonaa. Inta kalena waa wax iska luuqad ku qoran, deetana adigu aad iska soo akhrisan doonto. So that's resourcegana waxaan kaloo qaadan doonaa haddii la yiraahdo notice gooni ah oo buugaagtan aan ahayn anigu aanu sameynay. Waxaan kaloo qaadan doonaa question bank caan oo aan iibino USMLE archives la yiraahdo, wayna soo arki doonaa like just a moment. Okay, discount ayaan hadda sameynay oo sida aan soo sheegnay waa 35 ah. So ka faa'iideysta haddii ilaahay yiraahdo discount-ka. Marka noteskan qaadan doona kana ka mid ah. Kan ayaa ka mid ah. Kani tusaale just waxa waaye cell membrane structure,
waa qeybta maaragtay wuxuu ku jiraa maadada ugu horeysa ee la yiraahdo cell and molecular biology oo runtii maada foundation ah ama medicineka asaas u ah. Si fiican ayaan isku qaadan dhigi doonaa. Just example ayaan usoo qaadanaynaa qaabka aan wax u qaadan doono. So let's say ujeedada ugu horeysa cell membrane waa maxay? Waxa weeye inuu barrier u noqdo maaragtay intracellularka iyo extracellularka. Yacni seelka banaankiisa waxa jooga iyo seelka gudihiisa waxa ku jira inaysan maaragtay isku qasmin oo u kala haayo, because of mid walbaahi muhiimad ilaahay u sameeyey ayuu leeyahay. In seelka banaankiisa waxa ku jirana uusan si free ah ugu soo gudbin, gudaha waxa gudaha ku jirana uusan banaanka si free ah ugu gudbin, oo waxa ay noqdaan wax la yidhaha semi permeable, oo shuruudo loo baahan yahay markii la rabo in wax la kala gudbiyo. Marka componentska uu leeyahay cell membrane waxa weeye waxaa ka mid ah cell membrane lipids, sidoo kale cell membrane proteins waan arki doonaa, iyo waxa la yiraahdo glycocalyx. So saddexdan structure ayaa ugu muhiimsan, qaabkan ayaan u qaadan doonaa. Marka laga hadlayo outer and inner layer membrane-ka waxaa laga sameeyey this is the maaragtay asagii oo graphiga. Qaybtan kore markaad eegto iyo qaybtan hoose markaad eegto way isku eg tahay, laakiin dhexda maxaa uga jira different layer oo ka duwan outer and inner. So this is extracellular fluid way, xaggana waa intracellular fluid. Kan waxa weeye hydrophilic, which means biyaha ma necba, soo maahan, waa hydrophilic. Biyaha way this is biyaha iyo asaga iskuma ahan, anti iskuma ahan, so wuu ogolaanaya. This one waa hydrophilic also gudaha ku jira, because of xaggan waa aqueous environment, xaggana waa aqueous environment. So labadoodaba waa environment biyo ay ku jiraan. Marka extracellularka la joogana biyo ayaa ku jira, gudaha marka la joogana biyo ayaa ku jira. For that reason, labada layer ee banaanka ama gudaha xigta ee labada gees kala xigta waxa weeye waa hydrophilic. Laakiin waxaa different ah oo maaragtay la rabo inaad fahamto. Qaybta dhexe waxa weeye the hydrophobic, which means waterka way iska celinaysaa, biyaha ma soo mari karaan. For that reason ayuunan u ahayn cell membrane permeable to everything. Wax kasta ay kama gudbi karaan, especially waxyaabaha water soluble, waxyaabaha haddii ilaah yiraahdo water soluble-ka ah kama gudbi karaan. So xaggan waxa weeye labadan qayb u kala qaaday. Qaybta koowaad oo ah outerka oo phosphates iyo sphingosines ayaa ka kooban yihiin. Outer membrane-ka labadan ayaa ugu caansan, phosphatidylcholine and sphingomyelin. So labadan ayaa ugu caansan, waa specifically phospholipidska ay ka kooban yihiin, uu ka kooban yahay layerka kore maaragtay marka laga hadlayo lipid bilayerka. Layerka gudaha, qaybtan gudaha xigta waa kana laga hadlayaa, wuxuu ka kooban yahay phosphatidylserine iyo wuxuu ka kooban yahay phosphatidyl iyo ethylamine. So saddexdan ayuu ka kooban yahay qaybta korena, qaybta hoosena way ku kala duwan yihiin. Marka waa isla phospholipid weeye, laakiin phospholipidka substance-ga uu ka kooban yahay ay ku kala duwan yihiin. Fatty acids gains ayuu sidoo kale leeyahay, cholesterol ayuu leeyahay. Qaybtan waxa weeye waa maadada ugu horeysa ee cell and molecular biology. Cell and molecular biology-ga maadada ugu horeysa aan qaadan doono. Contentskeedu marka waa kana, marka tusaale yar baan usoo qaadanaynaa qaabka maaragtay weli waxaan ku wada jirnaa demonstrationkii iyo qaabkan wax u qaadan doono. Marka maado walba insha Allah waxay yeelan doontaa chapters aan cover garayn doono. So this is the first subject aan rabnay inaan cover garayno. So unitka ugu horeeya waxa weeye cell and tissue structure and organization. Chapterskan ayaa ku jira on cover garayn doonaa. This chapter is stem cells key and differentiation koodii. Waxyaabaha ay noqonayaan waa high ma ahan, laakiin waa muhiim medicineka inaad waxyaabaha basic ah fahamsan tahay. Extracellular matrixka it's important, very important, especially collagen iyo waxyaaba badan baa ku jira meesha oo rabo inaad fahamto, oo qaabka ay u samaysmaan iyo muhiimadda ay leeyihiin iyo clinically maaragtay waxyaabaha cudurrada ku dhici kara qaar ka mid ayaan isla arki doonaa. Biological membrane-ka ama cell membrane-kii oo asagana hadda tusaale yar aad ka soo aragteen. Cytoskeletonka and organelleska oo cell organelleska. So this is very important, cell organelleska. waxaana dhan waa isla arki doonaa. Organization of the eukaryotic unitka labaad weeye
waa organizationka eukaryotic genome and gene expressionka waa se waxa la yiraahdo meeshan waxaan ku qaadaa dhigi doonaa haddii ilaah yiraahdo waxa la yiraahdo central dogma ayaan si fiican aan uga qaada dhigi doona oo highly ah in terms of USMLE exam any exam fahamkaaga maadooyinka medicineka inaad si fiican u fahamto it is very important inaad fahamtid genomeka wax laga wado iyo wax laga wado gene expressionka waxaa laga wado DNA replication translation transcription whatever RNA waxaas oo dhan aan ka hadli doonaa to the protein meesha ugu dambeysa jabtaradan dhan aan ku qaadan doona haddii ilaah yiraahdo sida loo regulate gareeyo maaragtay cellska sida looga ilaaliyo inay astuma ama overgrowth ama abnormal growth inay sameeyaan sida loo regulate gareeyo waxyaabaas ayaan isla arki doonaa unitka saddexaadna waxa weeye membrane transport oo sida cell to cell ay communicationka u sameyn lahaayeen transportyadii kala duwanaya meeshan ku qaadan doonaa active iyo passive iyo diffusion iyo bla bla waxaas oo dhan ayaan ku arki doonaa glucose transport and drug transport wax yar ayaan ka taaban doonaa those glutes aad garanayseen ilaa iyo 7 ayay gaarayaan waa meel mid walba iyo meeshuu ka shaqeeyo cell signaling ayaanu qaadan doonaa haddii ilaah yiraahdo signalska kala duwanaa g protein oo 7 bas whatever aad dhahdid iyo sidoo kale steroid receptorka iyo waxaas dhan ayaan arki doonaa regulation of cell growth and waxa noogu dambeeya unitka noogu dambeeya waa regulation of cell growth and cell death ama wax la yiraahdo apoptosis cell cycle-ka ayaana meeshan ku arki doonaa maaragtay isha regulation of cell cycle sida loo regulate garayo abnormal cell growth cell deathkii and maaragtay aging sida u dhaca waa ilaa iyo 20 iyo dhowr jabtar waxaan dhan ayaan isla arki doonaa haddii ilaah yiraahdo buug waa kana jabtarkan koowaad hadda waynu sharaxna waa qaadanay maaragtay so this is the maaragtay guideline-ka aan raaci doono buugga reference-ga noo noqon doona haddii ilaah yiraahdo so waxaan oo dhan si fiican insha Allah meelaha hayliga un baan aad aan maaragtay ugu joogjoogsan doona oo rabnaa inaad wada fahamtaan dhakhtar kasta ee maaragtay maadadan si basic u fahmana maadooyinka medicineko dhan ayaa u fududaan doona especially maaragtay maadooyinka basiga oo kale oo soo socda sida physiology-ga biochemistry-ga haddii ilaah yiraahdo geneticska pharmacology-ga waxaan oo dhan ayay asaas u tahay waa biology asaas ayay u tahay marka we know markaan dugsiga maaragtay markaan medicineka ahayn semester 1 iyo 2 faham badan ma aynu ka haysan medicineka xoog badan ma aynu saarayn maadadan laakiin gadaal dambe ayaad ku ogaatay inay muhiim tahay for that reason waa inaad recap ku samayso dhakhtar kasta way anfacaysaa oo raba inuu exam diyaariyo ama uu medicineka fahamkiisa uu maaragta kordhiyo marka si fiican oo af Soomaali leh oo maaragtay qaacidooyin leh oo xigmadaysan ayaynu usoo gudbin doonaa conceptiska inaad core ka fahamtid core conceptiska marka kaliya wax ma sharaxi doono insha Allah waxaan isku dayi doonaa in wax memorigiina ku hara aynu sameyno oo wax meaning leh ama macno leh wax meesha ku qoran kaliya inaan sharaxno wax macno weyn ma sameyn doonto dhakhtar kasta ayaa akhrisan doono ayaa akhrisan kara laakiin insha Allah waxaan isku dayaynaa inaad fahamtaan conceptiskan anagoo isticmaalayno whiteboardka zoomka ama applicationo kale ee aan sameyn doono inaad live class joogtid maaragta kaliya ma akhrin doono buuggan ama notiska waxaanu sharaxi doonaa haddii ilaah yiraahdo conceptiska si clear ah doctors aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin wixii su-aal kale aad qabtaan ee kooriskan ku saabsan waxaad nagala soo xiriiri kartaan qaybta whatsappka ama qaybta emailka ama qaybaha aan baraha bulshada qaybaha aan ku leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin koorisku waa intii aan soo sheegnay maadooyinkaas ayaa lagu qaadan doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa safarkan inuu noqdo safar khayr badan qof kasta oo danaynayana insha Allah waxaan rajeynayaa inuusan financial barrier ama caqabad kale aysan ka reebin aan xalin doono intii macquul ah soo dhawaada dhakhtar kasta oo dadaalayana waxaan u rajeynayaa insha Allah dadaalkiisa inuu mina dharo. Assalaamu calaykum.